filimkan waxa uu nadul geynayaa sanadii 1944 oo ahayd markii ay soo dhaweyd dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida markii ay dawladda Finland iyo midowgii Soviyeeti ay kala saxiixdeen heshiiskaas oo ay kamid ahayd in dhulkooda ka saaran ciidamada Naasiga Jarmalka ee uu hogaaminayay Hitler hubka u yaala Finlandna ay kala wareegaan ciidamadaas Jarmalka oo burburinayay meel kasta oo ay cagta saaraan ha noqoto wadooyin magaalooyin buundooyin iyo wax walba oo ay arkaan waxaan arkaynaa askari hore oo Finland u dhashay oo ka haray dagaalka go'aansadana inuu nabad ku noolaado waxa uu baadiyaha ka raadsanaya macdanta dahabka waxaan arkaynaa isaga oo haadinaya kala saarayana dahabka iyo dhagaxaanta iyo ciidda waxaana weheliya faraskiisa iyo eygiisa oo kaliya waxaan kale oo aan arkaynaa isaga oo dab kulaalaya diyaarado ayaana korkiisa maraya hase yeeshee wax dan ah ka gelimayo waxa uu dhulka ka qodaya god weyn oo uu ka baarayo dahab sida uu maalmo u qodayo iyo markii dambe arkaya dhagax weyn oo dahab ah oo ka soo horbaxay wax yar ayuu ka qaadaya ciidda markaas ayaa waxa uu soo baxaya dhagaxaan dahab ah oo aad u fara badan kadibna waxa uu la ooyayaa farxad waxa uu bilaabayaa in uu biyo ku mayrto yacni qubaysto kadibna waxaan arkaynaa in jirkiisu ku yaalaan dhaawacyo fara badan taas oo ay ka soo gaartay dagaalkan dhamaadka ah ee bilowgiisii uu kamid ahaa ciidamada Finland kuwa ugu halista badan kadibna waxaan arkaynaa isaga oo kooraystay faraskiisii wadana iska socda waxa ka hor imaanaya ciidamadii Naasiga Jarmalka ee wax kasta oo ka soo horbaxa burburinayay kuwaas oo wata dumar ay soo qafaasheen marna ay kufsanayeen marna ay adoonsanayeen ninkan filimku ku socday ee tooraha ah waxaan arkaynaa isagoo aan ba ka cabsanayn oo wadada iska hor socda waxaan arkaynaa askari kamid ah guutadii gawaarida wadatay ee ka hor timid oo raba in uu dilo markaas ayaa waxa ka celinaya sargaalkii ciidamada watay waayo ninkan markasta waa la diri doonaa oo meed iska socda weeye sida uu isaga socday waxa ka hor imaanaya dad la daldalay oo la safay wadada uu ku socday sida uu socday ayaa waxa misana ka hor imaanaya guuto kale oo Jarmal ah sargaalkii watay ayaa amraya in laga soo dajiyo faraska lana baaro waxa faraska u saaran waxay ka heleen dahabkii uu watay kadibna isaga ayay bugaynayaan eygii uu watay ayuu u tilmaamayaa inuu cararo markaas ay eygana xabado ku furayaan askarigii xabada eyga ku furay ayaa qoslaya oo ku camiranaya Corby inta uu xanaaqo ayuu xiska tooray ka gelinayaa waxa uuna dagaal gacanta ah ula tagaya askartii Jarmalka ahayd mid ayuu ku xoogayaa qorigii uu watay dhamaantoodna waa uu wada laynayaa sargaalkii hore ee guutada watay ayaa maqlay codka xabada iyo dhawaaqeeda dib ayuu isugu soo rogaal celiyay oo soo laabtay waxa meesha ka dhacay suu arko waxa uu arkaya in guutadii ka dambeysay oo dhan la laayay waxa kale uu arkaya dhagax dahab ah oo ka dhacay ninkii la oran jiray Corby waxa uu amraya in odaygii dib loo raadiyo waxay arkeen isaga oo si yar oo tartiib ah isaga soconaya markii uu indhaha saaray ayuu ka cararay faraskiisii ayaa hal mar qarxay oo gogo'ay waayo waxa uu ku istaagay miino balse Corby isaga ma dhiman waxbana kuma noqon miinada meesha uu ku dhacayna waxay ahayd meel wada miinaysan ayna yaalaan tiro dhowr ah oo miinooyin ah sidoo kale dahabkiisa ayaa dhulka uga daatay waxa uuna dahabku uga dhigan yahay nolol ama geeri waxa uu bilaabay in uu aruursado oo gurubsado dahabkiisa ciidamadii ayaa ku soo dhow way ku yimaadeen isagoo dahabkii aruursanaya danna aan ka galayn imaatinkooda taliyaha guutadan wata oo magaciisa la yiraahdo taliya Barono ayaa isna la cajabsan ninkan iyo mowqifka uu taagan yahay waxa kale oo damac xoogan ka haya dahabka uu wato wuxuuna amar ku baxshay ilaa uu dahabka gurubsado inaan hal xabba lagu dhufan markii uu dahabkii oo dhan gurubsaday ayuu Barono amray in baas lagu furo balse intaan baaska lagu firin ayuu dhagax u haystay waxa uu ku dhuftay miino kamid ah miinooyinkii u dhawaa askarta meeshana waxay isku badashay wada qiiq oo waxba waa laga arki waayay isagana xabadihii lagu baas gareynayay waxa uu isaga dhigay gaashaan uu watay iyaguna dhan kasta ay rasaasta uga fureen markii qiiqi yaraaday ayuu damcay Barono inuu isagu meesha galo hase yeeshee waxa uu ka baqay miinooyinkan meel kasta ku rakiban sidaas darteed laba askari ayuu amray in ay galaan balse waxay ku tunteen miinooyinkii gabigoodina way go'een kadibna waxa uu u diray laba askari oo kale iyaguna waxay ku tunteen miinooyin kale oo waa ay qarxeen kadibna laba dumar ah oo ay horay u soo qafaasheen ay iska horreysiyeen iyaga oo horay u soo dhaqaaqay si haddii cid qarxayso ay isaga hormariyaan gabdhahan oo ay u qarxaan iyagu taliyihii ayaa amray in ciidamadu dib u gurtaan una jihaystaan Norway askari la socday oo taliye ku xigeen ahaa ayaa u waramay taliye Barono una sheegay in ninkan magaciisa saxda uu yahay Corby una ahaa taliye kamid ah ciidamada Finland qoyskiisii ayaa waxa dilay ciidamada Ruushka sidaas darteed waxa uu sameeyay argosi oo waxa uu sameystay guutada uu ugu magac daray guutada dhimashada waxa uu gacantiisa ku dilay 600 oo askari oo kamid ah ciidamada Ruushka hadii uusan ninkan hadda saan nooga tagayna nasiib ayaan leenahay hadii aan la faahno u badbaadnay taliyuhu waxa uu mar kale ku haminaya inuu dahabkaas gacanta ku dhigo waayo waxa uu muuqata in Jarmalku ku jabayo dagaalkan labaad ee dunida sidaas darteedna uu u baahan yahay dahabkaas waxa uu qaadanaya go'aan ka gedisan kii hore oo ah hel ama dahabkaas ama dhimo
guutadii waxay bilaabeen raadin iyagoo adeegsanaya ayda wax urisa sida ay u socdeen ayay yimaadeen meel uu ku dhuumanaya Corby si uu uga dhunto aydana waxa uu go'aansaday inuu isku shubo bansiinka gaariga ay wataan waxa uu ku booday iyagoo aan u jeedin candhada gaariga ay wateen ee waday gabdhaha ay soo qafaasheen kadibna bansiinkii ayuu isku shubay si uusan aygu u urin kadibna waxay dareemeen in gaariga hoostiisa uu ku dhuumanayo markii ay dhankiisa u soo dhaqaaqeen ayuu gaariga ka dhex baxay oo waxa uu ku cararay dhanka badda xabad ay ku dhufteen waxaana xabadii ay ku kicisay bansiinkii oo isagoo holcaya ayuu badda shalam yiri badii ayuu quusay muddo dheer ayuu ku dhex jiray waayo hadii uu banaanka u soo baxo shiish ayaa saaran hal mar ayuu bud soo yiri oo neef jiiday kadibna waa uu quusay askari ayay u direen oo waxay amreen inuu gacanta ku soo dhigo Corby waxa uu ugu tagay askarigii Corby gunta hoose ee badda waana uu bireeyay askarigii miskiinka ahaa markii dhiigiisii ka soo bulbuliyay biyihii dhamaantood way argagaxeen Baroona ayaa amray askari kale in gudaha uu galo si uu soo qabto Corby askarigii labaad ayaa waxa uu fuulay laash yar markii uu biyihii wax yar ka dhex socday ayuu diiday in uu fuliyo amarka taliye Baroona waa naftiisa ayuuna u cabsaday kadibna taliyuhu waxa uu amray in askartu ay ku furaan baas bartii ayayna ku dileen askarigii kadibna askarigii oo meed ayaa waxa uu ka soo caariyay xeebta Corby ayaa u yimid soo si quusitaan ugu yimid kadibna waxa uu qaaday ninkii oo waxa uu ka dhigtay gaashaan uu xabada isaga celiyo si uu uga gabado waxa uuna ka cararay meeshii ayaga oo meeshii iska taagan ayaa waxa yimid eygii uu watay Corby taliye Baroona ayaa go'aansaday inuu eygan ku baadi goobo ninkan Corby waxa uu socday muddo dheer kadibna waxa uu arkay dhulkii dhamaa oo wada holcay dabna la qabadsiiyay waxa uuna yimid meel uu ku dhuuman karo inkastoo uu wada dhaawac ahaa wax yar kadib markuu meesha joogay waxa uu galay koomo muddo dheer kadib waxa uu yimid isla habeenkii eygiisii balse waxa uu arkay in qumbulad eyga ku xiran tahay kadibna eygii waa uu tuuray halkaasna waxa ka soo gaaray dhaawac kale bartii ayuu habsaday Corby maadaama uusan ka baxsan karin taliye Baroona waayo jirkiisa oo dhan wada dhaawac ayuu ahaa meel kastana waa ay xanuunaysay ugu dambeyn Baroona ayaa gacanta ku dhigay Corby waana uu daldalay waxa uuna hubsaday in ay naftu ka baxday dahabkii ayuuna meeshii ka qaatay waana uu ka tagay meeshii isaga oo faraxsan waxaas cajiib ahayd inuusan wali Corby dhiman jirkiisana uu dhexgalay bir meesha ku mudnayd oo uu isku taakeeyay si xarigu u ceejin halkaas ayuuna surnaa habeenkii oo dhan isagoo u dhaxeeyay bir hoos uga mudan iyo xarig qoorta uga xiran diyaarad nooca yaryar ah oo nooca dagaalka ah ayaa soo kormartay iyada oo ku daganaysay meesha uu ku daldalan yahay oo waxa watay rag diyaaradu ka shidaal beeshay oo doonayay in ay halkan ku dagaan oo ay ka baarbaartaan shidaal caagada shidaal iyo wax la mid ah aad ayay ugu soo dhawaatay meesha uu ku daldalnaa haftii iyo dabayshii ay wadatay ayaa Corby u bixisay xarigii uu ku xirnaa dhulka ayuuna ku dhacay laba sargaal oo la socday diyaaradda ayaa arkay ninkan soo dhacay mid ayaa eegay mise waaba uu nool yahay Corby sargaalkii ay aaday ayaa damcay inuu dilo balse waxa uga hormaray Corby oo xabad ku dhuftay ninkii la socday ayaa xabada dhawaaqeedii maqlay waana uu shakiyay waxa uuna ku dhawaaqay magaca saaxiibkiis kadibna Corby ayaa inta gadaal uga yimid bir madaxa uga dhuftay dhagaxaadu yar oo dahab ah ayuu gacanta ku haystaa waxa uu ka fakarayaa wixii uu sameyn lahaa waxa uuna go'aan ku gaaray inuu ka argoosto taliye Baroona balse Corby dhaawacyada ku yaala waxay ahaayeen kuwa culus sidaas darteed waxa uu go'aansaday inuu isdaaweeyo isagu waxa uuna jirkiisa ka soo guray rasaastii la dhacay waxa uuna dhaawacyadii ku shubay bansiin si uu jeermiska uga dilo waxa uuna tolay meelihii biruhu jeexeen waxa koomadii ka soo kacay sargaalkii uu madaxa birta uga dhuftay oo ahaa duuliyihii diyaaradda kadibna waxa uu ka argagaxay sida uu isku daweynayo Corby haddana waxaan arkaynaa taliye Baroona iyo guutadiisii oo wada socda kadibna waxa wadadii ay ku arkayaan diyaaradda wadadii xiratay oo meeshii la mari lahaa ku go'an waxaana ogaanaynaa inay diyaaradani tahay tii ay wateen labadii nin ee ku soo dagay meeshii uu ku daldalnaa Corby waxayna eegayaan diyaaradii waxayna arkayaan in ay gubanayso sidoo kalena duuliyaha diyaaraddu qoortiisa lagu ceejiyay isla xarigii lagu daldalay Corby kadibna aad ayay u argagaxayaan waxa uuna amrayaa in ciidamadu dub u garasho sameeyaan taliyuhuna waxa uu galay taangiga gaarigii ay saarnaayeen dumarkii la soo qafaashay mid kamid ayaa dhoola cadeynaysa waayo waxay taqaanaa Corby iyo sida cadawga uu u galay waxayna sheegtay in cadawgiisu aysan ka guuleysan karin waxayna ku baqagalisay ciidamadii gaariga la saarnaa in Corby dhamaantiin idin layn doono iyada oo u sheekeynaysa ayaa askari kamid ah askartii ayaa la dilay gaarigina laga tuuray waxaana u soo galay Corby waxa uuna dajiyay xaaladda gabdhihii waxa uuna u qaybiyay Corby qoryo waxa uuna u ballan qaaday inuu ka badbaadin doono askarta Jarmalka waxa uuna dilay dareewalkii waday gaariga gabdhaha lagu waday isaga gabar ayuuna saaray gaarigii gabar gaariga wadi karta ayuu saaray gaarigii ayay soo kaxeeyeen waxay la simeen gaarigii ay saarnaayeen ciidamada Jarmalka kadibna rasaas ay ku fureen dhammaan askartii gaariga saarnaydna waa ay laayeen
taliya Barona waxa uu ogaaday waxa meesha ka dhacay dareewalkii taangiga ayuu amray inuu aad u dheereeyo Corby ayaa soo fuulay taangigii waxa uu nafas la dhacay taangiga korkiisii iyagina waxay bilaabeen inay iska difaacaan mid ayaa qori kala soo baxay gaariga taangiga afkiisa kadibna rasaas ayuu huwiyay balse waa uu ku guul daraystay in ay dilaan kadibna taliya ku xigeenkii ayaa u soo baxay Corby oo gacanta kula dagaalay taliya Barona waxa uu amray in taangigu hore u socdo oo uusan gadaal eegin kadibna waxa awood batay Corby isagoo gacanta ku haya ayaa waxa uu yimid laba nin oo ruush ah oo watana gaari mooto markii arkeen inuu ninkan yahay Corby dib ayay uga carareen maca mootadii way ka carareen kadib ayaa waxa uu yimid gabdhihii oo iyaguna hubkoodii wata iyaga ayuuna uga tagay in ay dilaan ninkii kufsan jiray ee ay muddada dheer curaarta u ahaayeen waxa uuna durbadiiba raadiyay taangigii oo uu ka dab orday taliya Barona taangigii ayaa waxa uu geeyay meesha ay ciidamadiisu iyo isagu diyaaradda ka raaci lahaayeen waxa uuna bartii ku dilay ninkii la socday isagoo oo diidan in hadhow dahabka lala qaybsado kadibna diyaaradii oo ka ciribta ayaan arkaynaa Corby oo ku soo dhow waxa uuna ku furayaa tacshirad waxa uuna dhaawacayaa duuliyihii diyaaradda kadib markii ay diyaaraddu lugaha dhulka ka qaaday ayuu inta uu ku booda faas suraya bir ka mid ah biraha diyaaradda sidaas ayuuna diyaaradda gudaha ugu soo galayaa taliya Barona ayaa shakinaya oo in diyaaradda lagu jiro kadibna waxa uu isku dayaa inuu baaritaan ku sameeyo diyaaradda gudaheeda waxa uu arkayaa Corby oo diyaaradda ku dhex jira waxaana dhex maraya dagaal aad u adag actionno iyo dagaal iyo balaayaa meesha ka dhacaysa kadibna Corby ayaa maaragtay dhulka isku tuuraya waxa ana xarig ku garaacaya taliya Barona halkaasna waxa uu ka wataa khidad iyo sir buu ka wataa waxa uuna xarigii uu ku garaacay iyo gacantii wuxuu iskala xiray qunbulad meesha diyaaradda saarnayd oo loogu talagalay in ay dadka lagu duqeeyo dadka dhulka in diyaaraddu ay ku duqeyso kadibna qunbuladii iyo taliya Barona isla socda ayuu dhulka ku tuuray waxa uuna ku qarxay dhulka waxa uu eegayaa meeshii laga waday diyaaradda waxa uuna arkayaa in duuliyihii geeriyooday dhaawacii soo gaaray diyaaradduna waxay ku soo hoobanaysaa dhulka si ay u dhacdo isna waxa uu ka barbaarayaa diyaaradda gudaheeda baalashood waana uu ka waayayaa kadibna dahabkii ayuu soo qaadanaya isagoo laabta gelinaya waxa uuna isku dhiibayaa masiirkiisa kadibna waxaan arkaynaa in ay ku dhacday webi dhooqa ah kadibna waxa meeshii ka soo baxaya Corby oo aysan waxba gaarin waxa uuna imaanayaa meel magaalo ah waxa uuna galayaa meel suuq ah oo dahabka lagu iibiyo waxa uuna iibsanayaa dahabkiisii filimkiina halkaas ayuu ku dhamaanayaa waadna ku mahadsantahay daawashadiina hanaga ilaawinina like iyo subscribe inoo tirahdaan